shakooyinkii ugu waaweynaa xiisada bariga dhexe gaar ahaan dagaalada u dhaxeeya ama iska horimaadada u dhaxeeya Israel iyo waliba Iran iyo mandiqada bariga dhexe oo gubanaysa halkaad nagala socotaan waa caalamka TV fadlan waxaan ka codsanayaa channelka subscribe saaro si share gare saaxiibadiina la wadaaga meel kasta oo aad joogtaana muuqaalka like ku dhiirigeli caawa qodobada barnaamijkeega aad markaasi kaga bogan doontaan aad bay u fara badnaan doonaan waxaana ugu muhiimsan digniino loo jeedinayo dawladda Mareykanka iyo waliba talaabooyinkii ugu dambeeyay mandiqada bariga dhexe ka dhacay ugu dambeyn diyaaradii B2 ee Mareykanku uu isagu lahaa waan soo kicinaya oo waxaan keenayaa badda Pacifica ugu dambeyn way soo dhaqaaqday oo garoonka markaa masaldhigga weyn ee Whiteman way ka soo baxday waxaana la tilmaamayaa in qayb Mareykanka uu ka noqon karayo waliba si degdeg ah Ruushka oo isagu soo hanjabay isla markaana hadalkii uu isagu jeediyay madaxweynaha markaa ra'iisul wasaarihii hore ahna madaxweynihii hore dalkaasi Ruushka nin ka mid ah ragga ugu saameynta badnaa Medvedev waxa uu yiri Israel waa inaad ka qaadaan hubka nuclearka bedelkeeda inta Iran aad ka raadinaysaan wararkii ugu waaweynaa ayaan sidoo kale diradda saari doonaa Mareykanka iyo xaaladihii ugu dambeeyay maxaa dhici doona haddii dawladda Mareykanka qayb ay ka noqoto weerarkana toos loogu qaado mid ka mid ah madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Bill Clinton ayaa si cad uga hadlay arrintan isla markaana fariin cad u diray dawladda Mareykanka iyo madaxweyne Trump kuwa iyo kuwa kale iyo waliba wararkii ugu waaweynaa xiisada bariga dhexe ayaan diradda ku saari doonaa fadlan haddii aad nagu cusub tahay waxaan ka codsanayaa subscribe inaad saartid channelka oo aad sii share garaysid saaxiibadaadana aad la wadaagtid markaasi wararkii ugu dambeeyay waxay ku waramayaan in Mareykanku dhab ay ka tahay in weerar toos uu ku qaado dawladda waddankaasi Iran warkan waxa Washington saacad ay ku sheegaysaa in ugu dambeyn boqolaal Mareykana oo iyagu ku sugnaa mandiqada bariga dhexe gaar ahaan dawladda Ciraaq dalkeeda ama dhulkeeda ingibi ahaanba laga daadgureeyay halkan waa safaradda markaasi wasaaradda arrimaha dibadda waxay saacad u sheegtay markaasi in dawladda ay ku guuleysatay Mareykanka inay ka saarto dadkeeda Mareykanka ee ku sugnaa dalka Ciraaq yani dadkii aan muhiimka ahayn ama shaqooyinka aan sinaba looga maarmin iyagu hayay waa laga saaray waxaana la geeyay meelaha mandiqada kamid ah ama xitaa gibi ahaanba gudaha dalka Mareykanka taasoo markaa ku tusinaysa in xaaladdu faraha ay ka sii baxayso ilbiriqsi kastana dagaalku u dhici karo xaalad aan la sahashan karina mandiqada ay ka taagan tahay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump isagu labsadiisa wali wuxuu ku adkeysanayaa in weerar isagu qaadi doono isla markaana 2 toddobaad ayaa leeyahay Israel waxay ku guuleysanaysaa in ugu dambeyn ay ka dhaadhiciso dawladda Mareykanka in markaasi ay weerarka qayb ka noqdaan laakiin wali waxa jira caana isla markaana kamid ah kuwa aadka loo garanayo oo Daniel Payment isla markaana foreign policy wax ku qora fariin dheer iyo isagu markaasi maanta ku daabacay wuxuuna ka hadlay Iran haddii la weeraro waxa dhici kara haddii B2 markaasi diyaaradana daawanaysa ay shabaxa loo yaqaano weerar ku qaado gantaalka koowaad miyuu burburin doona mise lagu guuleysan doona gantaalka labaad taa haddii ay dhici weydo dawladda marka Iran sidee bay kaga falcelin doontaa qolaheeda xulafada ah talaabada ay qaadi doonaan iyaguna maxay noqon doonaan qodobadaas oo dhan maqaalka ayuu ku jira laakiin arrinta la isweydiinaya waxay tahay fariintii isagu u jeediyay ama hadalkii uu jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran Abbas Araghchi kaas oo si cad isagu markaasi uga hadlay wadahadaladii ugu dambeeyay waliba digniin buu isagu u dirayaa oo ah Washington dagaalka qayb inay ka noqoto markaasi haddii ay ka noqoto jawaab cad ayaan bixin doonaa buu tilmaamayaa wasiirka arrimaha dibadda taasoo ka dhigan in markaasi isku mid aysan noqon doonin qaabka hadda ay u dagaalamayaan iyo marka Mareykanka qayb uu ka soo noqdo markaasi waxa marka ay ku goodinayaan dhammaan masaalixda Mareykanka uu ku leeyahay mandiqada bariga dhexe inay saameyn doonto talaabada markaasi arrinta ugu muhiimsan iyo waliba sheekada xasaasiga ah saacadihii ugu dambeeyay aadka looga hadlay waxay ahayd dawladda Mareykanka goormay iyadu weerarka soo gali doontaa maxaa dhici doona haddii weerarka qayb ay ka noqoto markaasi mas'uul marka Iraniya oo la hadlay telefishinka Al Jazeera ayaa waxa uu isagu sheegay inay beegsan doonaan markaasi hubka nuclearka ama warshadaha hubka nuclearka lagu bacrimiyo ee Israel ee Dimona waxaana ay tilmaamayaan in suuragal ay tahay halkaasi in si toos ah
ay dowladda Iran u beegsato marka taasoo aan shaki ku jirin inay awoodo sababtoo ah markaad fiirisid khasaaraha iyo weliba marka dhibka gaaraya Israel waxaad ka garan kartaa duqii magaalada Haifa oo isagu ka hadlay maanta isla markaana si cad u sheegay in degdeg ay u doonayaan nabad 2 toddobaadna uu qabsaday madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump taasoo uu sheegay iyagu 2 toddobaad inay ku adag tahay halkan waxaad sidoo kale ka garan kartaa inay jiraan xulafo kale oo dowladda marka Iran ay heli doonto marka laakiin saacadihii ugu dambeeyay maxaa dhacay Iran waxaa markaas ay tilmaamaysaa wili warshadahooda nuclearka horumar bay sameynayaan wiliba way ka horumari doonaan bay tilmaamayaan dagaalka kadib markaasi marka la eego ninka marka madaxda uu ah hay'adda tamarta atomikada ee dowladda Iran waxa uu tilmaamayaa in degdeg ay u dadejinayaan marka la eego horumarinta nidaamkooda nuclearka hubban samaysanayna ilaa hadda lagama hayo laakiin waxaad dareemaysaa in ay bixinayaan hadallo ifafaala in markaasi tallaabo ay qaadi doonaan wargeyska caanka ee Politico waxa uu sidoo kale ku warramayaa B2 kaligeed markaasi in la dhaqaajiyo kama dhigna bay tilmaamayaan in weerar la qaadi doono laakiin dadka qaarkii waxay u fahmayaan in lagu hurdisiinayo ama markaasi lagu daroogeysiinayo leeyahay ha laga mashquuliyo Iran iyo waliba xulafadeedu talaabada Mareykanka markaasi si dhacdo lama filaan ay ugu noqoto dowladda Iran marka la eego waxa la tilmaamay ciidamada Israa'iiliintu waxay tilmaameen in ay wali beegsanayaan nidaamka droneska ee Iran iyo waliba markaasi baqarada hubka ee dowladda Iran ay hubka ku kaydinayso markaasi ciidamada Mareykanka sidoo kale Haaretz ayaa ka hadlaysa wargeys Israa'iiliya waxay ku waramayaan wargeyska wuxuu leeyahay ma awoodaan in markaasi damaanad cad inay burburin karaan Fordo waa mid ka mid ah meelaha saameynta leh halistoodu la aan sahlanayn waxa ay rabaan inay isticmaalaan diyaaradan oo ah diyaaradda shabaxa loo yaqaano mid ka mid ah waa midda ugu weyn ama markaasi ugu casrisan mana jirto dowlad aan ahayn dowladda markaasi Mareykanka dowladda haysata laakiin waxa jira dalalka kale ee Ruushka iyo Shiinaha inay soo dhaweynayaan diyaaradaha nooca iyagu ay haystaan Mareykanka marka waxay ku goodinayaan in ay ku baabi'in karaan walow damaanado aysan jirin waxa jira laakiin dhowr doorasho oo kala ah kow in loo diyaariyo ciidamo commandos oo Israa'iiliyiin iyo Mareykan in goobta ay ku degaan isla markaana miinooyin lagu xiro kadibna sidaas lagu burburiyo Iran laakiin goor hore waxay sheegtay in halkaasiba laga saaray waqti hore hubka iyo waliba marka uranium-tii la bacrimiyay markaasi hub maysan laakiin uranium-tii la bacrimiyay waqti hore baa laga saaray halkee la geeyay ila sirdoon ilaa hadda maysan helin dowladda Mareykanka ama xitaa maysan soo bandhigin oo lama garanayo inay helaan in kale Israa'iil wali waxay sii wadaa in ay markaas eedeyn u jeediso dowladda Iran waxayna ku eedeynaysaa inay beegsanayso xitaa dadkii Qubrus iyagu joogay waxaana sidaas sheegay marka Gadcoon Saacir oo wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale B2 ayaa markaas la soo dhaqaajiyay markii la soo dhaqaajiyay kadibna waxa la tilmaamayaa in radarkeedu la damiyay oo aan la ogaanin halka ay ku sii jeedo gaar ahaan waxa la tilmaamayaa in Pacifica iyagu ay u jeesanayaan waliba waxa la leeyahay Diego Costa markay tagaan saldhigaasi waa dowladda Ingiriisku inay ka helaan ogolaansho taasoo marka la aaminsan yahay wadamada reer galbeedku inay isku raacsan yihiin geesta kale Ruushku labsadiisu waxa uu u digay dowladda marka Mareykanka gaar ahaan Medvedev oo madaxweynaha hore uga soo noqday dalkaasi waxa uu si cad ugu sheegay in dowladda Mareykanka in ay dagaalka ka qayb noqoto halis uu noqon doono laakiin haddii hub nuclear laga hadlayo wuxuu yiri Iran maxaa loo daba joogaa waxa ugu muhiimsan tahay waxay tahay buu qabaa in ay tahay in markaasi la beegsado Israel wuxuuna tilmaamayaa inay tahay Israel in hubka nuclear ka haysato iyadu ay soo dhiibto markaasi taas oo ilaa hadda aysan jirin si cad in markaasi uga jawaabayso marka Putin labsadiisu waa uu ka hadlay oo rag badan baa markaasi dhacdooyin ka hadlay waxa jiray maanta xitaa shir ka dhacay wadankaasi Istanbul wadanka Turkiga gaar ahaan magaaladiisa Istanbul taasoo si cad markaasi marka looga hadlay waliba wadamo badan ay ka hadleen laakiin Putin isagu labsadiisu wuxuu isagu qabaa inaysan suuragal ahayn in la fududeysto weerarka marka digniinta iyo cawaaqibta ka dhalan kartana
waxa uu sheegay inaysan ahayn mid sahlan ruushkana uusan ka aamusi doonin. New York Times goordhaweyd waxay sheegtay in dowladda waddankaasi Maraykanka ay og tahay in dowladda Iran gaar ahaan ninka haysta dalkaasi Iran waa Khamenei uu isagu og yahay in Maraykanka uu u qorsheynayo dil markaasi. Tusaale New York Times oo RTN markaasi ay xigatay waxay ku waramaysaa in ilawareedyo ay helayaan weliba ay diideen cid ay yihiin, yacni ilawareedyo diideen la shaaciyo Ayatollah Khomeini in uu isagu u diyaar garoobayo xitaa dilkiisa markaasi, taasoo ka dhigan markaasi haddiiba ay dhacdo markaa in la dilo waxa uu go'aaminayaa baa la yidhi cidda bedelaysa markaa, taasoo aan waxba ka bedelayn marka la eego dowladda Iran. Xataa waxaa la aaminsan yahay haddii la dilo ninkan in ay adkaanayso in nidaamkan markaa la rido. Mar walba maamulku waxa ugu sarreeya waxa loo beegsanaya waxay tahay in isku dhexyaaca uu dhaco kadibna dalka burbur uu isagu galo. Daniel Payment waa mid ka mid ah ragga aadka loo garanayo ee khubarada lagu tilmaamo foreign policy ayuu warbixin dheer ku daabacay. Waxa uu isagu ka hadlay tallaabada dowladda Maraykanka ay qaadi doonto iyo weliba isku daygoodu sidoo ku miro dhali karo. Madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Jimmy Carter wuxuu ahaa madaxweynaha kaliya ee soo maray dalkaasi ee isagu sanadihii uu kursiga ku fadhiyaan dagaal markaasi galin. waxaa leeyahay xitaa markii ay dhalatay ama kacdoonkii uu dhashay dalka Iran waxa dhacday safaaradii Maraykanka ee Tehran in markaa shaqaalihii la afduubtay iyo weliba sidii aad ogeyd xiisadii dhacday kuma aysan riixin in weerar toos ah dalkiisa uu ku qaado markaa dalka Iran isagoo awooday markaas. laakiin sida Iran ay ka tabareereed markaas bay curdun ahayd marka la eego. Trump waxa leeyahay doorkiisu waqti xaadirkan waxa markaa isagu la hordhigaya afar arrin oo jiriirada marka foreign policy uu Daniel Payment isagoo hordhigaya. wuxuu leeyahay kow waa maxay hadafka dowladda Maraykanka ay ka leedahay. kow haddii ay leedahay hadaf in barnaamijka uu ku xukuumada nuclear-kan burburinaya waa hadaf cad buu yiri. laakiin hadafka haddii uu yahay in la doonayo in la bedelo regime-ka ama nidaamka halka ka jira sida uu hadalka u dhigay inay noqonayso mid daba dheeraata oo aan natiijo aan la mahdin ay ka dhalan doonto. waxa uu ka digayaa in markaasi Iran aysan gacmaha is saaran doonin oo markaa cawaaqib xumo ay ka dhalan doonto markaasi. waxyaabaha ay ka dhalan kara waxaa ka mid ah in xulafadeedu ay markaasi ay hirgeliyaan tallaabooyin ay qaadaan. dowladda markaa Iran waxay xulafo la leedahay Hezbollah taasoo la tilmaamayo in khasaare uu gaaray laakiin awoodeedu haddana aysan tirtirmin. sidoo kale waxay xulafo la leedahay Xuutiyiinta oo iyagu goor dhaweyd si rasmi ah u sheegay inay diyaar u yihiin weerar kasta inay qaadaan tallaabo kasta iyadoo ay adeegsadaan haddii Maraykanku ku soo biiro dagaalka dowladda Iran ay kula jirto Israel. waxaana sacad loogu digay Israel ama markaa Maraykankuba in weerarkan Maraykanka soo galaan taasoo markaasi adkeynaysa. goordhaweyd Bill Clinton hadalkii isagu yiri waxa ka mid ahaa Netanyahu wuxuu doonayaa isagu markaasi dagaal waqti dheer iyo weliba xukunka inuu iska fadhiyo inta noloshiisa ka dhiman, taas oo markaasi dhibaato ah buu tilmaamay. Maraykankana wax dana uguma jirto. waa sax buu yiri hubka markaasi wax gumaado waa halis, laakiin waxa ka sii halis badan buu isagu qabaa in dad rayida la baabiyo qatarro kalena ay la kulmaan. Bill Clinton hadalkaas uu jeediyay waxa uu cadaadis hor la saarayaa baa leeyahay dowladda Trump. Iran sidee bay ugu jawaabi doontaa. Daniel Payment oo foreign policy ku qoray wuxuu leeyahay kow Hezbollah, Lebanon, Xuutiyiinta iyo weliba militariga Ciraaq xitaa Suuriya weli waxay ku leeyihiin galaangalo baa la tilmaamaya oo ugu yaraan weerar ay ka geysan doonaan. Iran waxay weerari doontaa baa la yiri danjiriyaal Maraykan, saraakiil iyo weliba cid kasta oo weliba xitaa maqaalku wuxuu ku sheegay hore inay isugu dayeen John Bolton inay markaasi khaarijiyaan oo ay dilaan Mike Pompeo xitaa Trump waqtigii doorashada sida markaa jiradu ay sheegayso. marka Iran gacmaha isma saaran doonto maraakiibta shidaalka. goordhaweyd dabcan waxaa la tilmaamayaa markab markaasi Iran ay lahayd in ay weerareen markaa Israa'iiliyiintu isla markaana ugu yaraan Israa'iil ay qayb ka soo dhigtay marka la eego maraakiibta iyadoo markaasi ay ku dagaalamayso. weliba dowladda Iran waxay leedahay ustuul iyo weliba maraakiib aad u ballaaran taas oo halis weyn ku noqon karaysa dowladda Maraykanka lafsadeedu. marka iyagu waxa leeyahay dagaalka dhanka baddana qatar weyn buu noqon karaa. dekedaha ayaa la beegsan doonaa. gibi ahaanba waxaa xirmi doona marinka Hormuz oo Iran awood ay u leedahay.
waxaa la iska hilmaami doonaa saldhigyada Mareykanka sida la tilmaamayo ee gacanka iyadoo la leeyahay waxay taageerayaal badan ku leeyihiin marka la eego wadamada dariska Iran sidoo kale ha ka tegin in Xuutiyiinta iyo Yemen iyo Sacuudigu marka xuduud ay u dhaxayso aadna ugu dhow yihiin inay beegsadaan halkaasi markaa Mareykanku wuxuu halis weyn ugu jiraa baa la tilmaamayaa in uu ku baaba'o dagaalkan sida markaa Daniel Payment iyo Foreign Policy ay qabaan sidoo kale wuxuu leeyahay waxa laga yaabaa Shiinaha waqtigaas inuu helo fursad Mareykanka haddii uu isagu halkan markaa dagaal ku galo inuu isaguba markaa qaramsado Taiwan weliba markaa cagta mariyo sidoo kale waxaa laga baqayaa nuclear tactical ah in uu Ruushka uu isticmaalo Ukraine sida majalada markaasi Foreign Policy lagu daabacay oo Daniel Payment uu leeyahay dhaqaale burbur Mareykanku soo wajo ayaa ka dhici kara markaasi wuxuu leeyahay Iran maxaa ku dhici kara Iran xukunka haddii markaa meesha laga saaro waxaa iman doona markaa isbedelkaasina wuxuu noqon doonaa mid fowda ah kow waxa ka dhici doona buu leeyahay dagaal sokeeye oo tiimka hadda qabsaday waxay isku dayi doonaan inay ka argutaan nidaamkii ka horeeyay gaar ahaan dowladda Iran waxay leedahay dadkeedu aad bay u kala duwan yihiin shiicada ku badnaato laakiin sunniyiin bay leeyihiin oo waxay leeyihiin marka la eego dad fara badan ama marka qoomiyado kala duwan marka waxay leeyihiin yahuud bay leeyihiin haddii sunniga iyo waliba markaasi qolyaha kale oo laga tirada badan xukunka loo dhiibo wuxuu noqonayaa baa la tilmaamayaa iyaduna mid waqti qaadanaya in xukunkaasi la daadajiyo sidii dhacday marka Ciraaq oo laga qaaday sunniyiintii sida markii la dilay laguna wareejiyay shiicadii iyo waliba kurdiyiinta oo markii hore xukunka aan badnayn sidoo kale sunniyiintiina aad bay markii horeba u tirayaraayeen waxay keentay markaasi in argagixiso iyo weerar iyo waliba marka dhibaatooyin hor leh la galo markaa sidoo kale wararkii ugu dambeeyay marka majaladu waxay ku tilmaamaysaa in xiisadu mar walba ay taagan tahay xoog military ayaa dhalan doona argos ayaana Mareykanka markaasi uu la kulmi doonaa bay leedahay argosigaasina xitaa wuxuu noqon karaa weerar argagixiso ee maaha kaliya kuwa nidaamsan maadaama dawladii meesha ka baxday buu tilmaamayaa sidoo kale wuxuu leeyahay korar ku yimaada awoodda Israel way isballaarin doontaa maadaama awood weyn iyo waliba xulufo dal markaasi la ahaa isbahaysiyo badan sameeyo Iran ahayd meesha ka baxday waxay heli doontaa inay daciifiso dhammaan dadka ka horjeeda ee Carabta waxay heli doontaa marka awood dhaqaale waxay xiriir toos ah la sameyn doontaa wadamo hor leh taas oo markaasi ka dhigi doonta mid dabiici ah sida marka maqaalka lagu sheegayo Foreign Policy majalada Daniel marka Payment qoraalka qoraalka ama maqaalkan isagu daabacay wuxuu leeyahay Mareykanka haddii uu dagaalka sii wado xoogiisa military wuxuu wareejin doonaa gobolka markii uu islaha ka bax u jeeso Shiinaha wuxuu ku qasbanaan doonaa mandiqada maadaama deganaansho xumo ay ka dhacayso mar kale awoodiisa inay ku sii badato markaasi wuxuu lumin doonaa xoog dheeri oo kaga hortagi lahaa Ruushka iyo Shiinaha yiri Iran sidoo kale waxay leedahay xarumo qarsoon kaliya maaha saldhigga Fordo mid marka la tilmaamayo waliba 100 mitir ayaa dhulka hoosteeda isugu jira gantaalka burburin karayana ee GB 57 ee Bunker Buster ka loo yaqaano iyo waliba markaasi diyaaradan gantaalka markay ku dhufato maxaa damaanad qaadaya xitaa Haaretz oo Israel laga leeyahay waxay leedahay ma jirto damaanad Mareykanku u haysto in markaasi si toos ah ay u burburiso markaa dabcan waxaan ku eegaynay wararkii ugu waaweynaa waliba caalamku qormooyinkii ugu waaweynaa laga qoray dagaalkaasi haddii aad nagu cusub tahay fadlan waad daneynaysid falanqeymo caalamka iyo waliba wargeysyada waaweyn ay ka sameeyaan xaaladaha iyo waliba xiisadaha ka jira Israel iyo waliba Iran iyadoo la ogyahay xitaa marka la eego dowladda wadankaasi Iran in marka ay ku guuleysanayso inay naafayso nidaamyadii difaaca cirka waxa la tilmaamayaa in aad halkan nagala xiriiri kartid waliba qormadan aad arkayso goor dhaweyd ayay markaas soo baxday waxaana si cad loo sheegayaa in dowladda Iran iyadoo ay ku guuleystay nidaamkii difaaca cirka in ay markaa saameyn toos ah ku yeelatay Israel isla markaana aysan awoodin Israel inay sii dagaalanto khasaare ballaaran u gaarayo aad ma santiin daawadayaal fadlan subscribe saara caalamka TV follow barteena sina share garee mahadsanid